وبركاته ديجا جواد السلام ملك ساد جوكتان waxaan dhihi karaa waa shimbir ilaahay ummadda uu soo diray ama waxaan dhihi karaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala hadiye ka timi xaggiisa waxaan saa u leeyahay markaan arko shay ummaddu ay ku nacfido ku liibaantay waxaan jeclahay inaan ummaddeeda mar walba la wadaagon ku celceliyo waa kaniinka hadda halka idinka soo baxay oo mar walba aan idin soo gudbiyo qisooyin ku saabsan laba maalin ka hor waxaa igu imaatay dukaanka Al-Shifa Minnesota gabar Soomaaliyeed oo kaniinka gadatay codkeeda waan soo gudbin doonaa ma hadda ma soo gudbin laakiin marka aan soo gudbin doonaa hadduu waqtigu ii saamaxo ama qoraal iyada ka yimi anana la xiriirin laakiin oo ay timi waxay ugu tiri kaniinkan baan qaatay waxaan aad ugu dhibanaa oo aan aad ula rafaadsanaa xanuunka loo yaqaano bimacnaa aan ku xanuunsan jiray xanuunka caadada intii aan qaatay waa ku liibaanay yani daalkii iyo xanuunadii aan ka caban jiray ama dhibtii ama xanuunkii ihayn jiray ama dhibaatooyinkii aan dareemi jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu iga siiyey caafimaad taama kaniinkaas ma qaadato hooyo ilaa iyo waxay ka keentaa guul iyo farxad sidoo kale maalin dhaweyto isagoo markaa ii yimi ayaa waxay ila kulantay gabar Soomaaliyeed oo waliba gabdhaha qiimaha badan aan maaragtay qadarinta u hayo oo kaniinkeedana qaadatay waxay ugu tiri waxaan ka qaaday nashaad iyo farxad baan ka qaaday caafimaad mid labaad isii taqriiban waxaan u maleeyay waa wii gudihiis qofkii labaad oo markaan la kulmo kaniinku marka mar walba waxaan jeclahay inaan u soo gudbiyo ummadeena Soomaaliyeed bulshadeena Soomaaliyeed waxa faa'iido ugu jirto sida maalin hore aan idin sheegay kaniinkan wuxuu kulansaday fitamiinaad fara badan qofkan bilo aadankana mar walba jirkiisa wuxuu u baahan yahay fitamiinaadkaas waa hadda gaarigan aan wato ku dhex jiro maanta haddii uusan biyo ku jirin ama olyo uusan lahayn ama service kale oo lagu tala galay oo mid ka dhiban yahay inuu dhaqaaqo way adag tahay saadarteed iyadoo fitamiinaadka ay ka dhiman yihiin way adag tahay inaad dareento farxad ama caafimaad waxa laga yaabaa fitamiin yar oo ka dhiman inuu ka haysto dhasha inuu ka haysto maxay ahayd hurdada inuu ka haysto waxbarashada inuu ka haysto xusuusta inuu ka haysto maxay ahayd daalka faraha badan ee ku haysto aad ka caafimaad lahayd waxa laga yaabaa fitamiin yar oo ka maqan jirkaaga oo aadan ogeyn wax weyn aadan ka soo qaadaynin inuu yahay midka kula haray kaniinkan gabdhaha Soomaaliyeed way ku liibaaneen khaasatan kuwa xagga caadada ka sheeganayo maalin hore waxaa idiin soo gudbiyey hooyooyin dhasha ilaahay idinkii waad ku heli doontaan waanad ku liibaani doontaan waanad ku caafimaadi doontaan waxaan ugu bishaaranayaa walaalaha Nairobi kaniinka Nairobi wuu yimi wuuna yaalaa lambarkaas eber u dambayso 500 u dambeeyo wax insha Allah tacaala ka dalbo wax yar baa soo gaaray dhowr xabo oo maaragtay baanu u soo dirnay laakiin ka badan baanu soo wadnaa insha Allah tacaala marka intaas yaan adil laga dhamaysan ama hadduu khayr kugu jiro Allah ku waafajiyo ana markaas waxaan ku yiraahdaa bulshadayda hadduu khayr idin yahay Allah idin waafajiyo waxaan hubaa ilaahay idankiis hadduu khayr ku yahay rabbi ku qoray inaad ku liibaani doonto rag iyo dumar bana waa leeyahay wiil dhalinyaro jira isna qaybta ragga qaatay xurnayo waxaan dareemayaa daal fara badan caajis fara badan yaani aniga dhamaalinta waxaad u malaysaa nolosha dhan banacaya laakiin kaniinka markaan qaatay nashaad farxad caafimaad firfircooni marka waa fitamiinaad ku jira muhiim buu ku yahay soo dalba insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi